hadbayntaad adigu ilaahay aad jeclaato ayaa makhluuquna ku jeclaanayaan hadbayntaad ilaahay adigu aad ka baqdo ayaa makhluuquna adiga ka haybaysanayaan hadbayntaad ilaahay taacadiisa iyo diintiisa aad naftaada ku mashquulisid ayaa makhluuqa kalena baahidaada loo diro baahidaada ku daboolayaan man kaana fi haajati akhihi kaana Allahu fi haajatihi walaalkaaga muslimka markaad u gargaaraysid ee gargaarkiisa aad ku maqan tahayna adigana gargaarkaaga ilaahay baa kugu maqan ogow alfirs walaalkaaga muslimka ee islaamnimadu niga dhaxaysaad u gargaaraysaa oo ilaahay ajar kaga doonaysaa waad u khidmaysay waxbaad u qabatay waad u shafaacad qaaday ergaad u noqotay ergo ya waad la socoto waad raacday meel baad u raacday muraadkiisii saad ula soo qomayso adigana baahidaada ilaahay baa ku daboolaya ogow marka sirta noloshu waxa weeyaan ilaahay azza wa jalla xidhiidh fiican la yeelano qalbiga wuxuu ku raaxaystaa waa ilaahay dhikrigiisa khalqigu waxa ilaahay kugu sakhiraya waa ilaahay taacadiisa waxa qalbigaada ku nuuraya waa ilaahay dhikrigiisa waxa arsaaqada lagugu waasiya waa ilaahay taacadiisa waxa maaragtaanay nolosha caafimaadka aad ku heshaa waa ilaahay taacadiisa cibaada inaku maanta waxa u haysanaa dad badan u haystaan cibaadadani islaamnimadu iyo diintu inoogu yeedhayso hadday soon tahay hadday salaad tahay hadday xaj tahay hadday zaka tahay hadday diin laga shaqeeyo tahay hadday diin dadka la baro tahay hadday diin la barto tahay haddii xijaab iyo asur la qaato ay tahay waxaan u haysanaa cibaadadu inay aakhiro waxtarkeedu ka bilaamayo may adduunyadana aad joogto noloshaada yare gaaban waxay ku hagaagaysaa waa ilaahay taacadiisa xidhiidh fiican la yeelo allah bas إلهنا إنك أوباه جزاك الله خير شيخ الله أكبر إلهي إنك أوباه كن لي كما أريد أكون لك كما تريد كتاب طريق الهجرتين إمام ابن قيم الجوزي رحمه الله قصده وحكو شيغي نبي الله موسى عليه السلام markuu nabi shucayb ariga uu jireeyay dhul wuxuu ariga ku raacay maaragtaan yeeyay dhurwaagu ku badan yahay ariga marka la raacayna lama jeefsan karo geeliya looda marka la raacayo waa la jeefsan karaa laakiin arijuruhu ma jeefsan karo waayo dacwada ayaa ka dafaysa dhurwaaga ayaa ka qaadanaya موسى عليه السلام uu daalay marka deedna geed buu hoos fadhiistay baa isagoo daalan dhinacna uga baqayo dhurwaaga inuu xoolaha ka qaato ka dafo ayuu yar jeefsaday hurdadii baa la tagtay mar dambe marka nabi Muuse uu baraarugay ushiisiibu waaye ila ulbu sitaa mugta markaas arigii buu dhex yimid wuxuu arkay dhurwaa ushii nabi Muuse haysta alayhi salaam oo ariga neefka baal martaba u soo wicinayo ku soo celinaya markaas nabi Muuse yaabuu sida u eegay waa dhurwaagu ariga uga baqayba u soo ilaalinaya markaas la haatif dhawaaq buu maqlo lagu yiri kulli kama uriidu akunu laka kama turid ya Muuse sida anigu aan doonaya hadaad ii yeesho sida adigu aad rabtana anaka ku yeelanaba ilaahay ku yiri sida rabbi doonayo hadaan yeelo sida inaku doonana ilaahay noo yeelay dad badan baa kula noloshan maanta fahmi laanahay nolosha hadaad cibaadada ka dayi weyda macaankeyga ma fahmi karaysid waad wareeri waad dawakhi adoo wareersana malakal mawdka ku iman ogow laakiin haddii xidhiidhka ilaahay aan adkaysano oo iimaanka islaamnimada salaada cibaadada diinteennu ay naga noqoto maaragtaan dhaqan oo aysan naga noqon dhageysi kaliya oo diintu dhaqan ay naga noqoto waxaad arkaysaan adduunka dusheedaan janno ku galanaa janno dadka adduunka ku nool baa waa afar qayboodba waa imisa afar qaybta koobaad waa nin adduunka dusheeda inta la joogo jannu ku jira maalintuu dhintana laakiin naar buu galaya kow ka labaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu galaya laba ka saddexaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira cadaab ayuu ku jira laakiin markuu dhinta jannu galaya ka afraad adduunka intuu jooga jannu ku jira maalintuu dhintana jannadii weyneed buu galaya dadka adduunka ku nool waa afartaaba si kale haddaan u dhigo mid waxa weeyaan
وجنة جنة كسب مد waxa weeyaan waa cadaab ku sug midna waxa weeyaan waa cadaab janno ku sug midna waxa weeyaan waa janno cadaab ku sug laba gaalada ay khusaysaa labana muslimiinta ay khusaysaa labada gaalada horta inii macnaynaya dhageysta waa gaal weeyaan laakiin tharwa ilaahay siiyay dhaqaala ilaahay siiyay hanti buu leeyahay oo gaalnimada waxa u dheer waa hanti gaalkaasi adduunka dusheeda jannadiisii buu ku jiraa maalintuu dhintana cadaabkii weynaaba ku dhacaya الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجنة دويد وقتها كافر وكافر كهنتي لها لأن الجنة دي سوا معي حال كان أدوك أنتو جوجا وحو دونو سمين حبا كحران ما وحو دونو عني وحو دونو عبي وحو دونو داون ماشو دونو مري سو دونو أفولي سو دونو أسعن عدو دونو أتقي وح هبا يراتي سو جوجينيا oo qabanaya haba yaraatay ma jiro shahwadiisa adduunka dusheeda ku gudanaya kaas marka jannadiisi halkan weeyaan isaga bimaana shahwaadkiisi adduunka dusheeda ku gudanaya weeyaan waxa uu doonu sameyn waxa uu doonu cuni waxa uu doonu cabbi dharku doonu xiran soo doonu timaha u xiran meeshu doonu tagi waxa uu doonu fuuli sidoo doonu u hadli halkan weeyaan jannadiisi isaga laakiin maalintuu dhinta maxaa u dambaysa dharhum ya'kuluu wayatamattacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuuna baa ilaahay yidhi gaalada ha cuneen baa ilaahay yidhi iska dhaaf ha iska cunaan oo ha iska tuntaan oo ha iska raaxaystaan oo hididiladuna ha dagto hididiladu waa maxay waxaabaan samaynay waxaabaan samayn doonnaa waxaabaan gaadhnay waxaabaan soo wadnaa kolba cilmi baan gaadhnay macluumaad kalaan keenaynaa horumar baan adduunka ku soo biirinaynaa ilaahay baa la ilowsiinayaa laakiin waxaa ilaahay yidhi gadaal dambaysa ogaan doonaan baa ilaahay yidhi أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كورن بقى نبي محمد لقول لي هي هذا ندون قدو شيء ذي يقول راح نكواس كدمنا وحي الله يبغى هي وكوي مادو غيري دي ما كوي من السقف أجل شيء ما كودينين ده ما حكوا حاجة تمتعي أدون قدو شيء ذا كل صورة حيستين هذا وحبه مترين بقى إلى هيد وإلو بدونان كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بنك قيامة مركز السوء تاقان بل لو يدين لأورندونا أرلا دوشيدي إمسات كسور نقاتين مركابي أورندونا مالين أما مالين بركين أو يتمتعي أدونك كسور تمتعين كرسور حاجتين مجرو marka gaalka sarwada haysta ee hantiilaha bimaana jannadiisi waa halkan jannada loo jeeda waa maxay shahawadiisa halkan uu ku gudanaya wuxuu doono dhan waxa nafsadiisu ay doonto oo dhan halkan uu marka ugu sameeynaya markuu halkan ku dhameystana waxa ilaahay yidhi fasawfa ya'lamuuna marka u dambaysa kaas waa kaas gaalka labaad waa gaalkee waa gaalka faqiirka waa gaal laakiin gaalnimadiisa faqri baa u dheero darbi jiif weeyaan meelaha abu khamriga intuu cabuu darbiyada ku dhaca adduunka dusheedii sidan uu ku yahay oo cadaab buu ku jiraa aakhire markuu tagana cadaabkii weynaa buu gali walciyaadu billaah xadiis waxaa jira fa ina ashqa alashqiyaa man ijtamaca calayhi faqru dunya wa cadaabu alaakhira fi shucab aliimaan buu ku sheegay imaam bayhaqi raximahullah dadka adduunka soo maray ka ugu khasaaraha darani waxa weeyaan ee ugu hooga badani waxa weeyaan waa ninka adduunka dusheeda faqri ku haleelay aakhirana cadaabtii aakhira lagu tuuro walciyaadu billaah labada kale muslimiinta khuseeyaan waa mid adduunka dusheena cadaab buu ku jiraa laakiin markuu aakhira tago insha Allah jannu gali ilaahay raxmadiisa ka quusan mayno waa muslim adduunka dusheeda islaamnimada kuma dhaqmo macsi buu iskaga jiraa qaflad buu ku jiraa diinta dhinac uu ka haystaa dhinacna diinta kama haysto adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa waxa maanta adduunka dhiig daadanaya oo dhiig islaamka haddaan maanta lahaa innaka dalkeenna Soomaaliya aan ka soo jeedno kulligeen Soomaali baan iska wadanahay waa dad isku caqiida isku luqa isku madhab isku diina isku dal
وقوم كلي يكون الودن كنا ودن كان يمسك قبيل بكونول يمسك وضب بكونول يا شيخ دوري أفرت صومة واحد قبيل سكولين ما دركتين ما هي لماذا إنكم مسلمين وشهادين إن القبيلة سكوكو دمين وما الولبة كما قال سمر والبة من البلاد قال بكدعي ويا سلينيا ريح الدين ريح غفاء سلينيا ما السبب وترك الدين ويان ما دام الدين تسدي إلا الدنيا نوقف سويني عذابك أدونك كجرنا وقادا عذابك أدونك كجرنا إن دد مسلمين وأشهادنا ديقود أيس حلال شدان أيس دعان وأيس بوبان وأيس كحد قدبان وأيس حزدان وأيس حنتان وأيس دميان وقفك كلا ديقيس وحلا شدو محا كينايا وحا كينايا وحا ويان وقدبت دين الإسلام كان لقا قال لقو دغمي واي markii diintii la baran waayay la isku xukumi waayay laga shaqeeyni waayay lagu dhaqmi waayay la isku xidhiidhini waayay ilaahay jalla wa ala muxuu sameeyay marka qulubteeni baa ilaahay markaas ku dhiftay waynaka arkaya wadankan dhowr iyo 40 qoomiyadood baa inagula nool wala qolo la hadlaysa ma jirto nabad baa lagu wada nool yahay innakeena nabad baa ku wada nool nabad baa kula nool lah oo arsaaqad ku haysanaa oo amni ku haysanaa oo diinteeni si xorriyada aan ugu haysanaa wadankeeni aan ka soo jeednayna ayadoo dadkeenu 100% muslim isku afkaliya ay wada yihiin cadaab ku socdo cadaabkaas waa qabiilku waa nooc min alcadaab weeyaan la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu nabi guri aniga dabada gaalnimo dib ha ugu noqonina bu rasuulku yiri badbarkiina kale oo qoorta ka jaro oo dhiigiina isxalaashataan haddaad aragto ummad islaam u nisba sheeganaysa oo ninbaniga kale dhiigiisa u xalaashaday xadiiska waxa uu nabigu sheegayaa islaamnimo ma aha waxaas gaalnimadii baa dib loogu noqday jaahiliyadii ogaada cadaabka marka muslimiinta diinta aan ku dhaqmin ay ku jiraan dagaalka qabiilka kamida qaxootiga kamida qaxa ayaa kamida ummadda 8 albaab jahannama loo furay ee dhulka gaalada u soo socota ayaa kamida waa cadaab nooc min alcadaab inuu muslimku yiraahdo maanta dhulka islaamka nabadi ma taalo oo tacliini ma taalo oo dhakhtar fiican male oo nabadgelyo ma taalo oo arsaaqad ma taalo aye arsaaqada ilaahay baa haya walaakiin isagu wuxuu yiri arsaaqada yurub bay taala amniga ilaahay baa haya walaakiin isagu wuxuu yiri nabadgelyada yurub bay taala caafimaadka ilaahay baa haya laakiin isagu wuxuu yiri caafimaadku wuxuu yaalaa yurub iyo mareykan buu yaalaa wixii ilaahay laha ayaad u nisbaysaa Soomaha dad kale waa wuxuu ilaahay ka bada marka adiga dadkeeni inaga baxay ee dhulkeena ka baxay dhulka wada u baxay oo dhan maanta waxaan oran karaa 80 ama 70 mujtamacii inaga tagay way ku daayeen ogaada in yar baa ka nool maanta in yar baa damiir leh oo dadnimadii iyo diintoodii si haysata shalay mu'tamarkii dhamaaday culimadu ay soo gabagabeeyeen ayaan dhalinyar ka timid Minnesota ka yimaadeen iyagoo dhowr ah markaas aniga iyo Sheekh Cabdirashiid ayay u yimaadeen oo markaa miskiin nagu la tukadeen way noo warameen markaa aan 2004 bay ugu dambeysay qaaradaas waxay yiraahdeen bariga aad timaadeen waan maqalay dadku way fiicnaayeen oo muslimiin bay haayeen oo dadku masaajidda u badnaayeen laakiin maanta xagga kale beerta loo batay xagga beerta ma taqaanaan xagga balwada iyo khamriga iyo fisqiga loo batay bay yiraahdeen ee noo soo gurmada noo kaalaya waa dhalinyar waliba qaarkood halka bay ku dhasheen dhulka gaalada oo muslimiintu ay ku siiyaan waa cadaab ugu ma aha raxmad marka muslimka diinta aanan ku dhaqmaynin adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa laakiin aakhiro markuu tago arrinkiisu ilaahay buu hor yaallaa in shaa cadabahu hadduu doonana ilaahay waa cadaabi hadduu doono ilaahay waa u naxariisan taasi waa baabka ilaahay bay u taallaa laakiin ka afraad baan u socdaa dhageysta waa mid adduunka dusheeda janno ayuu ku jiraa markuu dhintana jannadii weynayd buu galayaa waa muslim mu'mina oo adduunka dusheeda ilaahay sharcigiisa ku dhaqmaya oo diinta ilaahay ka shaqaynaya oo diinta ilaahay ku dhaqmay oo ummadda baraya diinta oo diinta noloshiisa ay ka muuqato muslimkaasi adduunka dusheeda wuxuu ku jiraa janno maalintuu dhintana jannadii weynayd buu gali doonaa insha Allah dhahada yaa u diyaar janno ku sugan u helo insha Allah dhahada
janno janno ku sug ilaahay hayna siiyo ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa laga sheegay isagoo 3 maalmood aan cunto cunin ayuu odhan jiray low yaclama almuluuku wa abnaa'uhum maa naxnu fiihi laja'laduuna bisuyuuf waa nin 3 maalmood cunto aanan helin oo aanan cunin oo masaajid iska ictikaafsan mar ummaddu cilmiga baraa mar isagaa culummada wax ka barta mar ilaahay buu baryaa mar dadku ilaahay xaggiisa ugu yeedhaa 3 maalmoodna waa qatan yahay waxa uuna leeyahay dhegayso boqorrada iyo wiilashoodu nolosha aan ku jiro hadday ogaan lahaayeen seef bay igaga qaadan lahaayeen buu yidhi ama jadal macaanka aan dareemaya raaxada meesha laga raaxaysto maaha dhar fiican oo jirka loo xidho aqal fiican oo la dhisto gaari cad oo la wato magaasaan weyn oo la furto may raaxadu waxa weeyaan waa qalbigan oo ilaahay jalla wacala ku tacalluqma ood garataa waxa adduunyada ka dhacayo dhan waa qadar ilaahay adigana wixii ilaahay kuu qadaray mooyaane wax kale kugu dhici maayaan wixii ilaahay kuu qoray mooyaane wax kale heli maysid waa inaad garataa ilaahay jalla wacala qof kastoo adduunka jooga wixii ilaahay u qadaray buu helaya wax kale heli maayo marka janno allah inooga dhiga adduunka janno ku sugo insha allah dhahada bilaal alxabashi radia allahu canhu ardaah markuu dhimanayay xaaskiisu ku dul barooratay ku tiri waa xasrataa markaasuu indhaha kala qaaday naa maxaad leedahay waa dumar iska qalbi jilicsan oo markaa waa iska barooratay naaq baroortan iyo baroor diiqdan iska dhaafo waxaad tidhaahdaa waa farxataa maanta waa farxad iyo dhabuu yidhi markaasay ku tiri maxaa ku farxa waa adiga iga dhimanaya sakaraadkii baad wuxuu yidhi hadan nalqa alaxibba muxammadan wa saxbah buu anigu baritoole qofkaan la kulmi ma taqaanaa muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii baan la kulmayaa buu ka yidhi kuwa faraxsan bay adduunka ka baxayeen oo dhimanayeen lanna noloshan adduunyada iyaku may dayicine waa ka faa'iidaysteen kumay ciyaarine ilaahay bay ku garteen kumay shahawaadkooga kumay raacine axkaamta ayay raaceen adduunyada may camirine aakhiraday camirteen aakhiradii markay hagaagsadeen noloshii adduunyaduna waa sii hagaagtay markaas inagu maanta waxaan isku daynay inaan adduunyada dhisno oon qurxinno waan dhisnay haddana dadkii maanta raaxo ma hayaan qof kasta waa calacalaya maanta fa ilaahay jalla wacala hanu soo noqonno han toobadkeenno khaasatan dhulkanna ilaahay baana keenay anigu waabad ku dhalateen baan u malayn intiina badane ilaahay baa dhulkanna ina makansiyo ina dejiye soo maaha de amni baan ku haysannaa arsaaqad baad ku haysataan diin baad ku haysataan dacwad baad ku haysataan nabadgelyaad ku haysataan soo maahin de haddaba asbaabta waxaasoo nicmada ay noogu daa'imaysa waa maxay qur-aanka ilaahay ku sheegay aladiina in makkannaahum fi lard aqaamuu الصalaata waatuu الzakaa waamaruu bilmacruufi wanahaw can اlmunkar walilaahi caaqibatu اlumuur baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala kuwa dhulka aan makansiinin dhulka aan dejinno asbaabta dhulka ay ku makansadaan waxaa ka mid a salaaday ogaan baa ilaahay yidhi haddii dal kale aad ka timiday oo nin walba waan ognahay nin walba meel buu ka yimiday gobolladan waxaa ka iman keniyadeenna ku yaalla soomaalidu ay leedahay ama dalkii baa laga yaabaa in laga yimid oo loo shaqo yimid halkan haddii ilaahay dhulkanina keenay oo dadka dhulkan joogana maaragtaane ay dhib inoo geysan oo nabad iyo barwaaqo aan kula noolnahay waxaa la doonayaa xaq baa laynagu leeyahay ilaahayna abuuray xaqiisa han ilaalino oo innagu ka muslim ahaan qof bilaa salaadaya dadkeenna lagu arkin qoys walba qof bilaa salaadayaan lagu arkin aqaamuu salaata baa ilahay salaaday oogaan bimacnaa isaguna waa tukanayaa weeyaan awqaaddeedii buu ilaalinayaa aqoonteedii buu leeyahay dadka kalena waa u yeedhaayo wuxuu yidhaahdaa salaadda han tukanayna mariya wa aatuu zakaata zakadana way bixiyaan buu ilaahay yidhi maalqabeennadeennan haddaad muslimiinta inagula nool magaaladana fuqarada ducafada ee masaakiinta ee mustaxiqiinta uwa zakada haddii zakada la siin lahaa qof baahan oo miskiin oo faqiira laguma arkeen laanna tiradinu ma badno muslim kastoo magaalada ku nool waxa uu noqon lahaa hani buu noqon lahaa baahi bini aadan ka kaaftoomay buu noqon lahaa oo sharaf leh oo amaruu bilmacruuf dadkee wanaagga faraya dadkee
dadkan aad la nooshihiin ra'sul macruuf ibn Abbas wuxuu yidhi waa tawxiidka dadka laa ilaaha illa allah baa loogu yeedhayaa dadka islaamnimada la gaadhsiinayaa dadka waxaa la gaadhsiinaya tawxiidka loogu yeedhayaa wixii wanaag ee sharcigu faray baa la farayaa waraasul munkarna waa maxay yanhawna canil munkar waa maxay munkarka dadka ka reebaysaan waxaa la yidhi raasul munkarna waa shirkiga waa gaalnimada kufriga iyo gaalnimadan ummadda waan ugu digaynaa oo leedahay ka daayo ka toobadkan ilaahay uga soo noqda